markuu xad dhaaf noqdo oo waali isku bedelo. waa qisadeena maanta. Dmitri iyo Margarita Grasheva waa couple Ruushka ka soo jeeda. qisadooda adduweynaha oo dhan la yaabay. waa qisadii naagaha Ruushka jooga oo dhan ay la qaracmeen oo la waasheen. haddaad tahay qof jecel qisooyinka iyo dhacdooyinka runta ama diet iyo miisaan dhimis ka hela, labadaba channelka waad ka helaysaa. marka waxaa ku leeyahay subscribe noo saar, like iyo share, saxaabta la wadaag, dhiirigelin bay noo tahay. qisadan waxay bilaabanaysaa 2012. Dmitri iyo Margarita way isjeclaadeen. markay isjeclaadeen 2012 bay is arooseen. couple isku faraxsan oo happy bay ahaayeen. Dmitri wuxuu ahaa dhakhtar. muddo kadib 2 cunug bay dhaleen. markay 2 cunug dhaleen kadib Dmitri wuu isbedelay. wuxuu noqday qof aad u shaki badan. mar walba naagtiisa wuxuu ka qabay shaki inay khaa'imayso ama niman kale ay la socoto. marar badan buu la hadlay. wuxuu ku dhahay haddaa khaa'imaysid ii sheeg. way ka yaabi jirtay. maxaa kuu khaa'imaya? maxaa dhacay? mar walba shaki baa ku jiray. shakigii wuxuu ku noqday maseerkii jirro buu ku noqday oo gaartay inuu naagtiisa saaro imtixaan oo beenta lagu ogaado ama ikhtibaar kashfal kadib polygraph. waa imtixaan lagu ogaado ee askarta dadka saaraan dambiilaha siday ku ogaadaan qofkan hadduu been sheegayo mise run sheegayo. naagtiisa wuu khaa'inimo inay ku wado buu dareensanaa. maskaxdiisa waxaa ku programsaneed naagtan inay khaa'imayso. imtixaankaas markuu saaray kumuu quusan. mar walbaba shaki baa ku jiray. Margarita way u adkaysan weyday. markii dambe ilmaheeda bay wadatay. furiin bay dalbatay. markaas baa maskax iyo caqli ugu dambeysay. masayr asagoo ku jiray naagtan inay ilmaha ka qaadato oo haddana furiin dalbato wax weyn bay la noqotay. wuu ka diiday furiinkii. markii dambena wuxuu dhahay maalin buu ku dhahay imow guriga sidaa oga hadalno mushkiladan. ilmaheedii bay dad ooga tagtay. way u tagtay guriga aaday. gurigii markay aaday waxay u tagtay ninkaanuu midi gacanta ku haysta oo handadaaya. wuu waday baabuurkii buu saaray. baabuurkii markuu waday meel go'an buu geeyey. intaas uu baabuurku ku wadayna wuu ku qaylinayay. khaa'imad baa tahay. ilmahaygaa rabtaa inaa iga qaadatid. markii uu geeyey meel go'an geed buu gacmaha ooga xiray. wuxuu ku dhahay haddaa ku tusaya ciqaabta dadka oo khaa'imiinta sidii dadkii hore loo ciqaabi jiray gacmaha kaa gooynaya. way sadaqi weyday. faas buu imaaday. farahu buu ka gooyey. faraha markuu ka gooyey ay qaylisay. gacantii kale buu ku xijiyey. haddana gacantii kale buu ku xijiyey. markay ay miir beeshay wuu qaaday. isbitaal buu ku xooray. asagiina wuu baxay. askartu buu isku dhiibay. gabadhii waxaa la damcay in la badbaadiyo. gacmihii loo badbaadiyey. hal gacan baa loo badbaadiyey. gacantii kalena bir bay gashatay. bir baa loo geliyey siday u isticmaasho. Dmitri waxaa lagu xukumay sijin ama xabis 14 sano. muddo 14 sano. Margarita aad bay uga naxday xukunka. waxay isdhahday hadduu ka soo baxo xataa sijinka xabiska hadduu ka soo baxo waxay ka baqday inuu nafteeda kaw ka siiyo. laakiin nasiib xumo 14 sano kaliya baa lagu xukumay. waxay rabtay in abadal cumr in lagu xukumo. laakiin 14 sano kaliya lagu xukumay. wadanka Ruushka naagaha aad baa loo xumeeyaa. badanaa jariimooyin iyo dhacdooyin badan oo naagaha kaw looga siiyo ama si xun loogula dhaqmo baad arki doontiin haddaa raadisiin. marka qisadayna halkaasi ku ekeed. qiso la yaab leh oo laga naxo bay ahayd. runtii adduun weynaha dhan qisadaas aad bay uga naxeen. asxaabta waxaa rajaynayaa inaad ka hesheen qisada maanta. ra'yigiina kommentiyaasha igu soo qora. wax saasoo camal ah ma isdhahdeen way jiri karaan ama way dhici karaan. hanaga ilaabina subscribe-ka iyo share-ka. khayr idin rajaynaya. assalaamu calaykum.